إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعشركii noo socday ee ku saabsanaa axaadiisu lakhlaaq, axaadiista kusoo ortay akhlaaqda aynu akrinaynay oo culamadu qaar ay soo ururiyeen. cashirkii koowaad baynu qaadanay, maanta waxaan u gudbaynaa biidn illaah cashirkii labaad. waxaynu soo gaarnay nabiga caleyh isalaatu wassalaam akhlaaqdiisa inay ahayd qur-aanka. ibnu kathiirna inuu aayadda fasiray wa inaka la calaa khuluqin cadiim, inuu yidhi nabiga dabeecad bay u noqotay inuu qur-aanka ku dhaqmo. marka nabiga caleyh isalaatu wassalaam say umna caaisha soo warisay, akhlaaqiisu waxay ahayd qur-aanka. qof kastoo muslimana waxaa la rabaa inuu ku daydo nabigiisa nabi maxamed caleyhi salaatu wassalaam, oo ina la amray inaan kaga dayano wax walba. shaksiyadda ugu kaamilsan ee ugu dhamayska tiran ee ugu mudan ee qofku uu ku dayan karo waa nabigiisa caleyhi salaatu wassalaam. tii ayaynu sii wadaynaa, halkii baynu kasii ambaqaadaynaa. waxaynu sheegnay akhlaaqda nabiga caleyhi salaatu wassalaam inay kamid ahayd xishood badan inuu nabigu laha aleyh salaatu wassalaam, ilaa gabdhaha yaryar oo ka xishood badnaa. nabiga caleyh salaatu wassalaam inuu ahaa deeqsinimadiisu qof wax isii yidhi weligii laa ma dhihin. hadduu hayana waa siiyaa, haddii kalena muxuu yidhaahdaa hadhowna soo mar kale unba iyo fursad qofka siiya. nabiga caleyh salaatu wassalaam wuxuu ahaa geesi. saxaabadu dagaal hadday galaan oo asagu la joogo, markay arrintu adkaato asagay ku gaban jireen. welina nabiga alay slam dagaal kama cararin, baynamaa saxaabadu marar badan dagaalada ay ku jabeen oo laga adkaaday oo qaar ay carareen, oona dabeecadda basharku keenayso, ceebna maaha. laakiin nabiga alay slam weligii dagaal kama cararin caleyh salaatu wassalaam. nabigu wuxuu ahaa mid iska dhaafa, dadka u gafa oo u dulqaata. akhlaaqiisa oo dhan aada bay u qurux badnayd. xadiiska xiga haddaynu u gudubno, waxay wariyeen bukhaari iyo muslim fi saxiixayn can anasin radia allahu canhu qaal khadamtu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam khadamtu rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalam 10 siniin famaa qaala lii uf qatu maa qaala lii uf qatu calayh isalaatu wassalaam. nabiga caleyh isalaatu wassalaam weligii 10 sanaan u khidmeeyo uf ima dhihin, wax kale iska dhaaf. yacni ta'afuf inuu ka xun yahay xataa waxaan sameeyey weligii ima muujin. uf saas way macnaheed. ta'afuf ma sameynin inuu ka xun yahay waxa aan sameeyey weligii. waa ninkii u shaqeyn jiray anas ibnu malik, hooyadii baa u keentay. addoon maahayn anas, wuxuu ahaa radia allahu canhu saxaabi yar oo hooyadii u keentay nabiga caleyh isalaatu wassalaam si uu ugu khidmeeyo. marka weligii uf xataa ima dhihin, yani waan ka xumahay waxaad samaysay, xataa weligii ima dhihin nabigu caleyh isalaatu wassalaam. waa ku tusinaysaa 10 sano qof shaqaalo kula jooga ood weligii kelimadaas iyo wax ka badan kaa maqlin. waxay kutusinaysaa akhlaaqda nabiga inay aada u sarreysay caleyh isalaatu wassalaam. walaa qaala lii shayin facaltuhu lima facaltahu walaa lishayin lam afcalhu lima alaa facaltahu. shay aan sameeyeyna maxaad u samaysay muu idhihin, shay aana sameynina maxaa haddaad sameyn lahayd xataa ima dhihin, hadaad sameyn lahayd xataa imuusa dhihin. wa kaana sala allahu alayh wasalam axsana annaasi khuluqan, wuxuu ahaa midka ugu dabeecada wanaagsan dadka. walaa mastu khazan walaa xariira. walaa mastu ma taaban khazan walaa xariir, waa nooc xariirta ka mida, labada noocba ma taabanin. walaa shay-an shay kaana alyana min kafi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam. gacanta nabiga markaad salaato mid ka jilicsan weligii ma taaban buu yidhi, xataa xariirta. yacni nabiga alay slam xataa dadka kuma adkeyn jirin markuu salaamayo gacan jilicsan oo raaxo leh oo naxariis ah ka dareemaysid.
iyo dhimrin ay dad ku salaami jiray calayhi salaatu wasalaam. allahu akbar. walaa shamamtu miskan walaa citran kaana atyaba man caraqa min caraqi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam. wuxuu yidhi walaa shamamtu ma urin miskan miski walaa citran waxyaabaha catirka ile udgoonna ma urinin kaana atyab min caraqi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam, kaas oo ka udgoon nabiga dhididkiisa calayhi salaatu wasalaam. marka nabigu aada ayuu ahaa mid u udgoon nabiga calayhi salaatu wasalaam. nabiga calayhi salaatu wasalaam. وروى البخاري عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. إمام البخاري وحوري وأبي إسحاق وكوري إنه يدي وعن كم مغلى البراء رضي الله عنه وصحابي يقول أصغر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول كله أحسن الناس وجها وجه قرح بدن أي النبي عليه الصلاة والسلام وأحسن الناس خلقا. وهذا محل شاهد حديث كان كان هالكاسون أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وحي هايد كان ضدك أو أخلاق ود بعد في عن أو أخلاق ذو نكسر. مركز الشيء النبي صلى الله عليه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. هذا النبي قام ديرين من قابنين يتلقى حاد بها حاجة ديرك حاجة أحاديث مركز آد بيوبا أنت كسر أرتي أرنتاس. نعم. أبو عيسى الترمذي كتاب الشمائل أحاديث بدن كسر وارد كور حسب النبي يعني أبور كيسي سيدو هاي كتاب الشمائل كتاب كاسد ونقول كرتا. سيدو الإمام أحمد الحوري عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وحيت رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة. نبي ولي كعندي سكمر دفنين شقاله سيقفك أو خدمينيا ولا حاسسك سميت كمل قعنت أو كمر دفنين ولا ضرب بيده شيئا قط وحبنا قعنت نبي كمر دفنين بس سيضرب وليس إلا أن يجاهد في سبيل الله. دقال إنه قال ما أهاني وجهاد وكل دقال ما أهاني اتكلوا قعنوا قادم يشفتوا ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما إلا كان أحبهما إليه أيسرهما. وحوها حيتري نبي لما ولا خير بين شيئين لبا الشيء نبي لما سينين إنه كلا دورته وليس إلا كان أحبهما إليه كوجعلي وحوها أيسرهما كان أغفض حتى يكون إثما إنه الشيء قدام بيه هاي ما هاني فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم هذا قدام بيه لكن آد بوفق عنجري أيها النبي عليه الصلاة والسلام ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل. نبي أما أرجوصا النفتيسة لبات اللوجيستي شيء اللي ما دي أو النبي عليه الصلاة والسلام ولك عي أو أسجى نفتيسة كصافسا ولي أما أرجوصا إلا هدي دين تلا الواحد قدبه النبي وعدون جري عليه الصلاة والسلام. قف مسلم كان أساس أيها الغرباء إنه ويحسا كصافسا نسكع فيه لكن دين تلا هدي الواحد قدبه إلهي درتي إنه حناقه أو عرضه تصل وبهي فيكون هو ينتقم لله عز وجل. إلهي درتي بقفك أسمرك هدو قف حدود إلهي كالقدبة أخو قبنت لي حدود هدو كالقدبة ماركت سو مارك يسيد. نعم. وإنك لعلى خلق عظيم أيضا ابن عباس وحو يري وإنك لعلى دين عظيم دين وين بتقصوا أنتهي وهو الإسلام. إسلام لماذا هو ساسو قالوا حكو فسر مجاهد يا أبو مالك يا سدي يا ربيع ابن أنس يا الضحاك يا ابن زيد انت أبو حكو فسرين وإنك لعلى خلق عظيم وسلفك صحابة يتابعين وحكو فسرين الآية وإنك أدخل على خلق على دين كسو عظيم دين وين بتقصوا أنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإسلام لماذا
شو ماركيس ابن القيم وحيري نعم وسمى الدين خلقا إلى دينتي أخلاق بكم مقعابا لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة. الله أكبر. وحيري waxaa diinta loogu fasiray akhlaaqda loogu fasiray maxaa yeelay diinku akhlaaq waxay ka kooban tahay yacni culuum run ah iyo doonitaan wanaagsan iyo acmaal daahira iyo tu baatina oo waafaqsan cadaaladda iyo xikmadda iyo maslaxada iyo aqwaal waafaqsan xaqa nacam oo kasoo fulaysa arrimahaas iyo acmaal culuumta wanaagsan ka timid iyo doonitaanka wanaagsan naftu marka waxay kasbanaysaa waxyaabahaas azka al-akhlaaq sabartid wa ashrafaha wa afdalaha akhlaaqda midda ugu wanaagsan ee ugu fadliga badan tani akhlaaqda nabiga ayay ahayd calayhi salaatu wassalaam oo uu ka soo qaatay qur-aanka nabiga calayhi salaatu wassalaam kalaamkiisa nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu ahaa mid waafaqsan qur-aanka culuumtiisa oo dhan qur-aanku nabiga ka soo qaatay calayhi salaatu wassalaam acmaashiisa oo dhan waxay ku dhintayd qur-aanka soo markiisa waxyaabo quraanka ugu yeeray oo nabigu ku amal falay waxyaabo uga digana waa ka tagay waxyaabo quraanka dadka jecleysiyana waa ku dhaqmay waxyaabaha uu maartay uu diidana waa ka tagay وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام سيداس أيها رسولك عليه الصلاة والسلام أبو أمامة وحجري رسولك صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك مراء وإن كان محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود وهو حديث صحيح حسنه الألباني رحمه الله حديث كاس أبو أمامة ونبي كوري عليه السلام رسولك إنه عليه الصلاة والسلام وحن أبلغ قال أنا زعيم أي كفيل وضامن أنا أضمانت قاضي قولي كوي هلا جنة ماشي أقوها وصيصة ربط الجنة وجنة ماشي أقوها وصيصة وهي حاجة درجاتك جنة ودرجات ماشي أقوها وصيصة أبلغ قاضي قفك كتك الدودة هذا حق بها كدودة ودودة يوحس كده maxay dood inta badan waxay keentaa hebel karre iyo yani inay saarintu ahayn ilaahay darti iyo saasay keentaa marka inuu qofku iska daaya u fiican soo markiisa hatta xaq haduu yahay hatta inaad ka aamustid allahumma hadii dantu qasabto in baadil ay radido dad qofku marka hadee oo dadka luminaya marka waa ku qasban tahay soo markiisid laakiin asal dooda dhibaato iyo xanaaq iyo cara iyo kala dhimaansho iyo isnacayb iyo uqdad bay keentaa marka qofku inuu iska daayo ay ku wanaagsan tahay marka waxaan u ballan qaadayaa guri jannada fiideeda bilowgeeda hore yani meesha ugu hooseysa way qofkii ka taga dooda xaq baa ku taagnaada guri kale aan u ballan qaaday qofkii oo jannada dhexdeeda ku yaala qofkii ka taga beenta hadduu kaftamaya xataa haddaad kaftamaysid xataa kaftanku waa bannaan yahay laakiin shuruud buu ku bannaan yahay inaadan been ku hadlin oo ku kaftamin inaadan kaftan xoog badan oo isu bedelaya hadhow dhibaato iyo buuq aadan samaynin mid yaroo fudud inuusan dhaqan kaa noqonin had goor qof kaftamay aadan noqonin ee marmar ay noqoto sidaasaa laga rabaa qofka kaftamay kaftanka marka ma ahan mar walba inuu qofka kaftamo oo dhaqan ay ka noqoto meesha farsamo inuu kaftamo la marmar way kaftanku oo maatay weliba kaftan jilicsan oo fudud oo weliba runa inaad ku kaftato hadduu been noqdan iska bada marka nabiga alai salam wuxuu yidhi waxaan u ballan qaaday qofkii ka taga kaftanka qofkii ka taga beenta haba kaftame marka dadka markay kaftamayaan been bay ku kaftamaan marka qaar marka nabigu wuxuu leeyahay jannada bartankeeda guri ku yaala ayaan u ballan qaadaya qofkii ka taga beenta wa in kaana maazixa mid kaftamaya ha noqdo hadduu rabo intii kale iska badaa waa beytin fi acla aljanna tan way maxal shaahidkeenu maanta guriga meesha jannada ugu saraysan u ballan qaadaya liman xasana khuluqahu qofka akhlaaqdiisa wanaajiya kasbada akhlaaq wanaagsan oo dabeecad wanaagsan isku day inuu la yimaado oo dadka si fiican ula dhaqmo taas marka arrintaas waxaa ku sugan fadliga akhlaaqda wanaagsan darajadii ugu sarreysay jannada qofka dabeecadda fiican baa la siiyey soo markiisid qofka dabeecadda fiican baa la siiyey
allahu akbar oo dabeecadiisa ayuu ku gaadhay halkaa qofku soo markaysid dadku marka saddex bay noqdeen qof jannada meesha ugu hooseysa jooga ugu hoos darajada ugu hooseysa iyo qof jannada bartamaheeda meesha dhexaadkaa jooga iyo qof meesha ugu sarreysa jooga ka meesha ugu sarreysa jooga waa qofka akhlaaqda fiican leanna jannadu waa darajaad allah qur-aanka wuxuu ku yidhi walikullin darajaatun mima camiluu dad qof walba wuxuu leeyahay xagga jannada camalkiisii darajo waafaqsan ayuu leeyahay soo markiis marka akhlaaqda wanaagsan ana zaciim yani daamin wa kafiil anaa u ballan qaadayo nabiga alay slam jannada meesha ugu sarreysa ibnulqayim wuxuu yidhi waxaa la siiyey guriga meesha ugu sarreysa abaalmar baa loo siiyey leanna akhlaaqdiisa ayaa wanaagsanatay soo markiisi abu dar wuxuu yidhi radi allahu canhu oo wariyey inuu yidhi qaala lii rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi wuxuu yidhi ittaqi illaha xayثuma kunta وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وهو حديث حسن حسنه الألباني وغيره حديث كاس أبو ذر رسولك عكوري صلى الله عليه وسلم صدح جملة يابله جملة كوبات إلى كعب سمير كستو شفتي قولي كلي هذا شفتيت هذا بناك شفتيت هذا ضل شفتيت هذا كلي هاي هذا ودك هاجي شفت هذا ما كلا تكتيت الله كعب سبحانه وتعالى xumaanta hadday kaa dhacdana wanaag ka dambeysi haddaad dambaabto istikfaar iyo towbad iyo salaad iyo khayr la imow si lagaaga dhaafo wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan dadkana akhlaaq wanaagsan kula dhaqan saasuu nabigu alay salatu wasalaam xadiiskan saddex jumlo wey oo ma aragtay nabiga hadalkiisa ka mid a culus soo ma arkaysid oo usuusha diintoo dhan ku kooban soo ma arkaysid ilahay markaad la macaamilayso meel kastoo joogto allah ka cabsabay naftaada markaad maaragtay la macaamilaysana hadday xumaani kaa dhacdo wanaag ka dambaysi waa dadka markaad la macaamilaysidna si wanaagsan dadka ula dhaqan waay waa xadiis yaab la way soo ma arkaysid marka taqwada allah subxaana wa tacaala ayaa asalka koobaada soo ma arkaysid waana dardaarankii allah dadka u dardaarmay allah wuxuu yidhi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqu llah waxaan u dardaarnay ummadihii idinka horreeyey ee kutubta la siiyey reer banu israa'iil yahuud iyo nasaara kristanka iyo kulligood iyo kuwa horreeyeyba allah wuxuu dardaarmay kutubtooda dhexda loogu sheegay ilaah ka cabsada idinkana sida oo kale bu allah idin leeyahay subxaana wa tacaala haddaad muslimiinta tihiin atbaacdii nabi maxamed haddaad tihiin calayhi salaatu wasalaam ilahay ka cabsada ilahay dardaarmaya marka taqwada ilahi subxaana wa tacaala makaaneeda aada iyo aad bay weytay diintoo dhanna way soo gudagelaysaa asalka labaadna hadduu qofka xumaan ka dhacdo inuu wanaag ku bedelo soo ma arkaysid taas way asalka saddexaadna dadka inaad si fiican qofka ula dhaqmo taa weeye soo ma arkaysid marka gaal iyo muslimba akhlaaq wanaagsan inaad kula dhaqantid ayaa loo baahan yahay qofka muslimka ah ee gaalo la nool waxaa laga rabaa akhlaaq wanaagsan inuu kula dhaqmo dadka si dadka diintiisa u jeclaada laanno daaci waxaad u noqon kartaa adoon hadlin ficilkaaga iyo actionkaaga iyo hadalkaaga iyo dhaqankaaga ayaa daacinimo qofka ugu filan taasaana ka xoog badan hadalka marar badan waxaa ka xoog badan qofka inuu kugu daydo afcaashaad kugu daydo shaqada haddaad si sax u qabatid haddaad run sheegtid haddaad dadka si fiican ula dhaqantid haddaad ma aragtay qofkii kugu xadgudba aad iskaga gudubto waxaa waaye diintaada inay arrintaas ku farayso ayaa laga fahmaya diintaadii baad ka tarjumtay safiir islaamka matala ayaa tahay marka waa wax wanaagsan walidaalika muslimiintii hore ummado badan bay diinta wax ku gaarsiiyeen akhlaaqdooda wanaagsan iyo runta iyo mucaamalada dhabta ah iyo xumaan la-aanta ay ku gaarsiiyeen dad ummado dhan ba kusoo islaamay sidaas soo ma arkaysid saasaa loo baahan yahay saa darteed allah qur-aanka wuxuu ku yidhi laa yanhaakum allah can aladiina lam yuqaatilukum fi ddiin walam yukhrijukum min diyaarikum an tabaruum watuqsituu ilayhim in allaha yuxibu lmuqsitiin ilaahay idinma diidin nacam inaad wanaag u samaysaan kuwii aan idinkula dagaalamin diintiina yani qofku diintaada aan kugula dagaalamin gaal ba ha ahaade inaad wanaag u samayso mar hadduusan diintaada kuga colaadinaynin qofkaas inaad wanaag u samayso ilaahay kuuma diidin subxaana wa tacaala qofkii diintaada aan kugula dagaalin oon gurigaaga kaa saarin oon dhib kuu geysanin gaal ba ha ahaadee an tabaruum watuqsituu ilayhim inaad wanaag u samaysaan oo cadaalad u samaysaan birigu waa ixsaan inaad u samayso samafal inaad u samayso qofki cadaaladna de qofka walba rabaa inaad u samayso gaal iyo muslimba
عدو ككلابة عدالة كل رقمته ولا قمرمان تام دافي كرتي لكن بر وحاوي ديرات هنا ما رتي قفكي سمفل في عن أسميس إلى كوديد ما قال هدو يا حتى هدو قال نعم مر هدون الدين تان ولا دجالمينين قرية أنا كاسارين هدو قفكو عدو إسلاميها ولا دجالمية كاس دجال بعدين كالحي لكن الدوام هذا قالوا دن قال يا مسلم با إن هدو هناك أسميسو أو سمفل أسميس دين الإسلام كفرس دين الإسلام دين هناك سوا نبغى عليه الصلاة والسلام معاملة آد هناك سبوا قال قال نقمي سيدين تأصل قلان سيدين أصو قلان صدرت النبي إلهي وحسي دبيعات في عن قرآن كان الله وكوشك الله وحيد فبما رحمة من الله لنت لهم نحريس إلهي كسيي سببت أيات أوجل عنايد والله القف جلعسا ومارتي لين أو داتك أولم بدن ولو كنت فظا قليل القلب لانفضوا من حولك هذا هذا يمت دبيعات قلفسن وقلبي أضق وكاخل عر الله لانفضوا من حولك هذا كي يعلى وكالتقي لها أخلاق الإسلام waxay ku taagan tahay afar rugn oo culwi yiraahdeen afar tiir bay ku taagan tahay Soomaarkiis afar tiir bay ku taagan tahay akhlaaqdaas islaamku tiirash ay ku taagan tahay maartay afar xadiis ayaa sheegay afar xadiis ba sheegay akhlaaqda islaamka oo dhan afar tiir ku taagan tahay afar xadiis oo nabigu leeyahay alayhi salatu wassalaam ayaa sheegay al-Imam an-Nawawi كتاب كيس 40 أي أفر تبكو كان حديث كوبا ضحاوي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قفك إلهي آخر رميسا خيرا كوها الله أما إسكامس كان ليري كاسوءها وحاكم بحث فلان بسايد هبلا ساتري كان عتكال وحكم حكاكلا وحن خير بكو جيلا كوها كوغو جيلا مياه حتى دبنايا هاي اسكيرت هبا هالين أما هذا هالليسيد سغيره شو ماركيسيد مركا قف قدو إلهي رسولك الرميسين إلهي آخرها دو الرميسين هاي خيرك وها أما ها أمصو وحق هذا الكوي كاس حديث قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث قال بعض قفك وناقص وحكام إذا إسلام ميسا وناقص وحكام إذا وحن خصينين وكفراك قام ما بكو خصيين محادك قلي هذه سياسة هاي هذه دنكلة هاي أذيك وحنا دينك خصينين أو مسؤولية دي عادن قادين أو حوشادي أين نهاين هايسكو قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني وحن خصين قف ونفرق وحديثك الله بعضه حديثك صدحات أو نبي ومارتي كوسوك ويحاوي لا تقبض ها عرون نمبر إيه دردار زو كده ها عرونين وكعلي ننكي صحابي قال ها عرونين نبي كعلي مر صدحات وكوي ها عرونين maxaa yeelay maxkamadaha iyo isfuritaanka iyo dilka iyo dhibaato oo dhan iyo hoog iyo haydartaba waxa laga qaadaa carada maxaa yeelay qofka caraysan qof walba kala waa wixii marka aad dhow soo miigsato ayaad ka xumaanaysaa maxaad saa u sameeyay walidaalika qofka haduu caroodo waa dabeecad bashariya laakiin nabigu wuxuu nasiihay alayhi salatu wasalaam talaabooyin carada lagu dajinayo waxa kamid ah إن الأمستو ده حناق أوضن هذلين لأن هذا شعبات خريبي كان عايسة كان أفلقها ديني وحاط فوري كرتا لباتا جيسي كرتا عرب كاك هدي أتاقن تاينا فريست هدا فرد دينا سيحت سو مركزت مركز قفو حربا إنو إسكاب بدل ماشي مركز عربا هو كادعي إلى كنتروشيت بلو باهي مقعلون حيري هذين أسباب تعارض الله إيمان هو أسباب تعارض كينيس واحد كعرا سكفقو سو مركزت حديث كأفراد وحاوي المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه قفك مؤمن كأه وهو لك سكلا مؤمن كلا تعلي هاي نفسه ولا تعلي هذا تعيش إلى لو عين دتك عين هذا تعيش إلى لو ظلمين دتك ظلمين هذا تعيش إلى لو بين لقى شيء دتك بينك شيء وهكذا هذا تعيش هاي إن دتك يكون احتراما أو دتك احترام سو مركزت هذا تعيش يسف عن أولادك سف عن أولادك قد تعيش هاي يعني واحد كستو تعيش هاي أو خير شر ما سيد رواك لا شيء يسوع أن يحب لنفسي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير خير كنا اللي تعلاتي قفك مسلم كا في أساس الوباعي مرك هذا مسلم تدرك صنما لا تعلو هذا عافما لا يكسي عافما تك لا تعلو هذا علم لا يكسي علم تك لا تعلو
hadduu ilaahay xoolo ka siiyo xoolaha dadka la jeclow wahaakada saasaa loo baxaya soo ma arkaysid marka akhlaaqdu waxay ku istaagtaa afartaa arrimood tiirka koobaad carabkoo la ilaaliya waay man kaana yuminu billahi walyawm alaakhir falyaqul khayr aw liyasmut soo ma arkaysid marka carabku aad buu u dhib badan yahay ee iska ilaali carabku aad u dhib badan yahay ee iska ilaali soo ma arkaysid waynu sii wadi doonaa laakiin halkaa maanta ha inoo joogo wallahu aclam وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك